السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارته سودو هذا مركلة برنامج كله ما أنت وحيدين وذا فيديو آد مهم وقوة ضدك سومالي ده يكونوا دالكن مريكان كا أما بيزنس كودا وسو جارو دالكن مريكان كا أو لدي الجرايا بيزنس يدا كويا على دالكن مريكان كا شرع عصب أياجرة وعربينا نكده بجيو شرع جاس أولي رهدو Federal Corporate Transparency Act sharcigaas wuxuu dhaqan galay January koodii in sharci ugu talagaleen dawladda Mareykanka in ay uga hortagaan dadka businessyada ku gabada oo businesska intay magaca soo deystaan dhaqaalaha halkaas marsada oo xawaaladaha lacagaha ka xawila business accountiga iyaga oo aysan soo marin personal account-kooda si dawladda federaalka Mareykanka aysan u ogaanin arrimaha ay sameynayaan waxa loo yaqaanaa waa anti money laundering sharci oo ay soo saareen dalkan Mareykanka waxa laga yaabaa in dad badan oo Soomaaliyeed aysan la socon arrinkan in uu jiro waxa sharcigan uu leeyahay ganaax aad iyo aad u culus oo markay ugu yartahay haddii aad noqon weyso compliant qof u hoggaansama sharcigan waxa lagu ganaaxi karaa ama businesskaaga la ganaaxi karaa $500 per day ama maalinkiiba $500 ee lagu ganaaxaya total of $217,000 bay noqonaysaa ama $217,000 sanadkii bay noqonaysaa lacagta lagu ganaaxayo ama adiga ama businesskaagaba marka sharcigan waxa sharci laga rabo qof kasta oo small business leh which Soomaalida badankeed ay wada tahay ama dukaan dhar lahow ama truck owner operator ahow ama taxi yar lahow ama magacba ku register gareysnaado business oo aad ku isticmaashid waxyaabaha businesskaaga waxa kale oo sharcigan uu ka dhaqan gelayaa kontonka state ee dalkan Mareykanka ama Minnesota degano ama Ohio degano ama Colorado degano it doesn't matter meesha degan tahay what matters is as long as state secretary of state ka aad degan tahay uu businesskaaga register gareysan yahay businesskaasna uu leeyahay EIN number oo IRS ta u report garaysay waxa laga rabaa in aad la register garaysid qolyahan waxa la yiraahdaa FinCEN baa la yiraahdaa waa financial crimes waa qolyaha ka hortaga financial crimeska oo lacagahan la kala xawilayo iyo waxyaabahan la socda oo dawladda federaalka Mareykanka u qaabilsan arrimahaas so waxay leeyihiin website-kana waxa linkiga waxa idinkaga tagi doonaa qaybta kore waxa laga rabaa in aad register garaysid waa aad iyo aad ayuu u fudud yahay waxay sameeyeen waxa la dhaho beneficiary ownership information reporting waxay rabaan inay ogaadaan qofka businesska iska leh oo ka faa'iidayo isaga ownershipkii iyo beneficiarygii ownership information reporting ayaa la dhahaa waxay rabaan inay ogaadaan qofka iskale businesska oo ay ogaadaan businesskan waa register garaysan yahay secretary of state ka ka register garaysan yahay wuxuu leeyahay EIN number employer identification number ayuu leeyahay and then waxay rabaan inay meeshaas maadaama uu register garaysan yahay businesskii inay ogaadaan qofka lacagta ay ka soo gasho si checking account-kaaga iyo information-kaaga ay u ogaadaan haddii aad aragtaan qolyahan dimuqraadiga shuruuc adagna waad arkaysaan oo kula xiriira ama qofka individualka ama qofka businesskiisa so haddii aad truck owner operator tahay oo taarikada magacaaga ku soo qaadato that means you already ama DOT da adiga alahatid ama yaadan lahaanin it means in aad leedahay EIN number businessna uu ku register garaysan yahay taarikada magacaaga ku soo qaadatay DOT da qofka ku cararayso it does not matter waxa kale arkayay qolyo Russiana oo iyagana ku qasbayo darawalada u shaqeeya inay EIN number soo deystaan state-koodana ka soo register gareeyaan si canshuuraha ay qofkaas business to business ahaan uga dhigaan oo ay ugu soo diraan EIN numberkaaga so for reporting purposes markaa report gareynaysid DOT da iska malihid owner matid oo gaari malihid laakiin darawal ayaa waxa u tahay Russianka oo kale waxayna kugu qasbeen inaad soo deysato EIN number iyo
businesska register garaysatid checking accountina aa leedahay so qofkaas oo kale you still have to report it BOIR-ka waa inaad intaa gasho website-kooda fincen.gov ayaa la yidhahdaa waa financial crimes identification something like that so Fincen report waa inaad gashaa markaa gashidna aad ka soo daysataa aad u report garaysaa business inaad leedahay ku register garaysan yahay EI numberna aad leedahay ayagaa marka waxay ku assign garaynayaan Fincen number ayay ku siinayaan numberkaas sida social security-ga oo kale waaye numberka ayay kala soconayaan so markaa gashid website-ka insha allahu tacaala videoga ku xiga waxaan ka dhigi doonaa mid aan idinku tusaayo qof walba sidii uu u samaysan lahaa uu website-kan geli doonaa waxaan idin siin doonaa instructionskii iyo sidii aad u samaysan lahayd baan idin tusi doonaa insha allahu tacaala markaan computerkayga tago laakiin hadda videogan qof kasta oo Soomaali ah oo aad gaarsiin kartid gaarsii because dad fara badan ayaa waxay iska leeyihiin dukaamo yaryar waa aragteen Carmel Mall iyo kulli anaga iska leh qof walbana waxaa u register garaysan business name wuxuuna leeyahay EI number oo canshuuraha sanadka markuu dhamaado uu ku xareeyo so as long as aad register garaysan tahay as a business EI numberna aad leedahay waxaa laga rabaa si official ah in aad u report garaysid website-kan intaa gasho aad register garaysid so businessyada la register gareeyey oo aad noqotid compliant aad ku noqotid oo businesskaaga uu noqdo business sharcigan u hoggaansamay Federal Corporate Transparency Act ayaa la yidhaahdaa waxaana ansixiyey baarlamaanka waxaan ka rabaa State of Representative-ka iyo House iyo Senate-ka House-ka iyo Senate-ka Mareykanka labada wuu maray madaxweynahana wuu saxiixay waa sharci jira haddii marka business uu ku register garaysan yahay don't forget in aad register garaysid waxaa kale oo aan kaa codsanayaa in videogan aad la share garaysid dadka ganacsiga iska leh ee Soomaaliyeed no matter what state ay degan yihiin state kasta oo aad degan tahay waxaa laga rabaa in aad register garaysid haddii kale waxaa face garaynaysaa in lagu ganaaxo $500 per day maalinkiiba which equals $217,000 $217,000 ayuu sanadkii noqonayaa lacagta lagu ganaaxi doono haddii aad soo report garayn weysid in aad leedahay businesskaas qofkii ownerka ahana aad ka register garayn weysid whatever ku register garaysan state representative ka rabaa secretary of state-kaaga state-ka rabta joog 50 stateska sharciga wuu ka dhaqan galay waa sharci federaal ah qof walba oo Soomaaliya videogan gaarsii waa laga rabaa in aad report garaysid arrinka isaga ah oo hawl noo wada taala waxaan samayn doonaa insha Allah tacaala videoga ku xiga sidii loo samaysan lahaa iyo website-ka ka samaysan lahayd ayaan idin siinayaa haddii aad ku wareerto oo aad samaysan karin qof tax return ka xareeyay waxaas oo kale la xiriir insha Allah tacaala والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.